waftigan oo ka kooban wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland Salebaan Yuusuf Ali Kore, wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Maxamed Xaaji Aadan, la taliyaha madaxweynaha arrimaha bulshada Cabdiwaaxid Cabdiqaadir ay weheliyaan mas'uuliyiin ka socday dawladaha Kuwait iyo Bahrain, maamulka heer gobolkan degmada Laascaanood ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha dugsiga agoonta ee magaalada Laascaanood kaas oo ay fulinayaan hay'ado khayriye oo ka socday dawladaha Bahrain iyo Kuwait. waxaana munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta laga dhisayo dhismahaasi ugu horeyntii ka hadlay maamulka heer gobol iyo kan degmada. oday Siciid Maxamed Haari oo bixiyay dhulka laga dhisayo dhismaha dugsiga agoonta ee magaalada Laascaanood ayaa isaguna halkaasi ku wareejiyay dhugmantiga dhulkaasi. waxaanu idin guddoonsiinaynaa anigoo kamid ah odayaashii dhulka bixiyay oo ka kooban 24 shakhsi sharciyadii iyo mulkiyadii dhulka ayaanu idin ku wareejinaynaa. لا تعد ولا تحصى. ثم نقدم الشكر الجزيل للإخوة من الكويت جمعية إصلاح لجنة الأعمال الخيرية الذين جاءوا لبناء مركز إسلامي في للأيتام في مدينة لاسعانوت محافظة إقليم الصول من أرض الصومال. نشكرهم على هذه الجهود المباركة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في حسناتهم يوم القيامة. وعيقنا مشروعاني كور بحية مسؤولين تفولين مشروعاني كسعودي دولتها كويت يا بحرين. أننا نقوم بحفر الرباط كذلك في المنطقة كما طلبوا لنا، وكذلك كما قالوا لنا أن المدرسة ذي عايزة يمكن تكملتها نواعد إن شاء الله نرمم هذه المدرسة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه هي هدية من شعب البحرين لإخواننا في الصومال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب كل من الله يرحمها وأولادها لما تبرعوا لهذا المشروع بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا المشروع جاء بناء على توجيهات فخامة رئيس جمهورية صوماليلاند على أن ARC تتجه إلى الشرق، فنحن نعمل مع الحكومة جنبا إلى جنب من أجل تقديم الخدمات الاجتماعية في صوماليلاند. gabagabadina waxaa halkaasi hadalka isu daba maray wasiirada xiriirka golayaasha iyo horumarinta biyaha. waxaan u mahad celinayaa waayeelkii iyo waxgaradkii iyo culimadii iyo iskaashigii magaalada iyo mas'uuliyiinteeda iska kaashaday dhulkan in la bixiyo oo loo bixiyo in aynu agoonteena ku daryeelo iyo ubadkeena soo koraya. qofka waxa uu yahay shaqo kuma leh, laakiin waxaanu aqbalaynaa waxa uu inoo qabanay. ilaahay ayaa ummadda meela ku kala abuuray. ilaahay meeshuu ina ku abuuray waynu ku ladannahay, waanu ku dheragsannahay.